labaatan iyo saddex meel goobada gubatay labaatan iyo saddex goobood gubatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ee abuurtay ee koomkaana keenay ee muslim naga dhigay baa horta mahadda iska leh. maama anigu ganacsatada oo carwooleyda oo gobolka meeshaan ku gubatay baan ka mid ahay, hantida ku beeshay. maama annaga horta muqdisho rabbaaniya nagu dhacday, ilaahay baana keenay alxamdulillaah. qadarta rabbina waa naqaanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ilaahay noo dhaafsiisan inay nagu dhicin annagu waa aqoonsanahay. marka hooyo anigu hantidii waa naga gubatay, wax aan anigu hadda qiyaasi kara ma leh. aniga hantidaydii horta qof walba meeshiisuu ka waramaa. aniga carwadayda maalintii khamiista ahayd baan 2500 intaan aniga qaatay aan ku soo adeegay. awal way buuxday dharkii iidii alaabtii wax walba afkay haysay. marka wax aan aniga dabkiina markuu kacayna booska saddexaad buu ahaa, 2 boos baa noo dhaxaysay markuu dabku kacay. markaan arkay dabkii oo hal guri noo dhaxayso oo gurigii labaad uu soo gaaray baan horta indhaha saaray. marka indhaha saarayna alxamdulillaah rabbil caalamiin. ilaahay oo adaa subxaanahu wa tacaala allahu akbar. ilaahay oo naga badbaadi oo awooddaada wax noogu qabo waxaan waa dhihi waayey. xataa kaalay wax ii gura oo wax ii gurmada waa dhihi waayey. aniga iyo wiil kala joognay dadka kale way naga kala maqlaayeen. marka horta saasay wax ku dhaceen. hantidana hanti la qiyaasi karo aniga kulli aniga wixii iga gubtay waxa yarna dad baa iiga caymiyay. anigu horta bakeeri ma qaadin, waxna ma qaadi karo. inta yar oo hadda la ii bixiyeyna 3 meelood markii 2 loo dhigo aniga 2 meelood waa iga gubatay. saadabkuba wuxuu ii jirayba hal guri baa noo dhaxeeyay, 2 guri aa noo dhaxeeyay. markaan arkayna gurigii labaad buu haystay, hal guri aa noo dhaxeeyay. marka ilaahay mahadi waa dadkan halkan hanti badan aataalay. dukaamada raashinka ha noqoto, makiinada saliidda ha noqoto, carwooleyda ha noqoto. inta bishii Ramadaan laga baxay qof walba wuxuu haystay shilinkii cadaanka u haystay oo dib ugu soo camiray carwooyinkii. marka carwooyinka afkay hayeen wixii la hayay naf iyo maalba waa la geliyay. ilaahay mahadiis waayo horta waa gubteen. hantidii iga gubatayna anigu wax aan qiyaasi karo hadda ma tira koobi karo, waxna ma xisaabi karo. ilaahay subxaanahu wa tacaala oo awood leh oo shay keenay haddana keenaya. horta allahaasaan aaminsanahay anigu shakhsi ahaan ilaahaygii shalay siiyey baa haddana igu filan, isagaana aan wax weydiisana. ummadda islaamkuna dee waa dad muslim oo walaalaha iyaga ah, dee waxay nagu caawin karaan madaxweynaha ha noqoto, ra-iisul wasaaraha ha noqoto, ganacsatada Soomaaliyeed ha noqoto, muslimka Soomaaliyeed ha noqdeen. dee waxay nagu caawinayaan oo na siinayaan anagu diidi mayno. laakiin anigu wax cadeedan oo hadda aan ku yiraahdo intaas iga gubatay ma aqaan, xoolahaygana ma ii tirsana, mana xisaabi karo. 4 xaboo la bixay meeshan ku daaday bay ku jiraan, mana tirin qaanba. marka saas waay hooyo 23 meel goobada gubatay 23 goobood gubatay oo isugu jirta dukaan raashin, shopping, carwooley oo dhar iyo maacuun isugu jiraan, dukaamo yaryar oo kale oo iyagana ka sii yaryar. marka waa buuxday meeshu suuq weyn oo caalamiya buu ahaa banaadir, habeen iyo maalinba laga shaqeeyo. dee alxamdulillaah rabbil caalamiin baanu leenahay hooyo. Bimaalow Center, moolka Bimaalow. bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. xog balaaran ma naga siin kartaa? haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah. barta aad ka helayso qiimuhuna boqonogoys maaha, tayadu waa mid la hubo 100% bulshadu ay u bogeen. wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato electronic baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center. moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka electroniga sida qasaaladaha, firinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh. dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya. qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka, wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad.
wakhti badanna uusan kaa lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyeyn biimaalow center xarunta ganacsiga ee biimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macalin biimaalow